kubadda cagta caalamiga ahi waa ciyaar isku xiraysa malaayiin qof oo daafaha dunida kala jooga. waa mid dadka ku midaysa farxad, murugo iyo riyada mustaqbalka. Soomaaliya gudaheeda taageerayaasha horyaalada caalamiga waxay muujiyaan sida kubadda cagtu ay u tahay mid dhaqan iyo bulsho wada taabanaysa. Abdullah Xasan Maxamuud waxaan u dheelaatay akademi magacaygu waa Mascuud Abdiraxmaan Malaaq oo lagu naanay Sacuudi. waxaan ka tirsanayaa akademiyada yar oo lagu magacaabo TFT. waxaan ku dhisan degmadooda. waxaan ahay taageero Messi oo mustaqbalka waxaan rajeynayaa inaan sidiisoo kale noqdo oo qaranka Soomaaliya matalo. habeenka oo Messi ciyaarayo waan daawadaa sidiisoo kale inaan ciyaarno isku daya. waxaan ahay taageero kooxda Liverpool. waxaan rajeynayaa inaan mustaqbalka aan ciyaaro. caruur badan oo Soomaaliyeed waxay ku riyoodaan in ay maalin maalmaha ka mid ah u ciyaaraan kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub. taageerada kooxahan waxa ay si gaar ah u dhiirigelinaysaa dhalinyarada iyaga oo isku arka hal iyo xirfadooda kubadda cagta ka gaaray heer caalami. dhalinyarada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay tusaale ka soo qaataan ciyaaryahanada iyaga waqtiga ugu badan ee awood jireed iyo caalamitada iyo traininka waqti fiican ku qaato sida CR7 oo kale. CR7 wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu tababarka fiican ama traininka ugu badan qaato, kaasi oo markii ay garoonka tababarka la joogo waqti badan ku bixiyo, markii xaafadiisa ku laabtana waqti intaas lamida ku bixiyo. marka ciyaaryahanka Soomaaliyeed waa inuu tusaale ka soo qaataa isla markaana oo ku daydaa, isla markaana waqti badan geliya oo uu traininka soo xaadira, gurigiisa marka uu tago ku sameeyo training kale, gymka uu tago, habeenkii wareegga uu iska yareeyo. qofka markii iyada waqti badan isgeliso ayay dadka arkayaan. sababtoo waxaa la dhahay man lam yukrim nafsahu la yukrimi. qof naftiisa isaga aan darajeenin, dadaalin, waqti badan gelin, training ku gambiyo, waxa uu soo saari karo natiijo uu soo saari karo iska yartahay. gaar ahaan ciyaaryahanada da'dooda ay yar tahay oo wali kubadda cagta da' yar waxay u baahan yihiin inay waqti badan training geliyaan in ka badan inta ay gelinayaan magaalada inay dhex socdaan, isla markaana maqaaxiyada shaaha iyo baararka ku wareegaan. waa maasan tahay Tigray. kubadda cagtu waxa ay saameyn ku leedahay dhaqaalaha, ganacsiga bulshada sida goobaha shaaha, internetka iyo suuqyada dharka. dhammaantoodna waxa ay faa'iido ka helaan ciyaaraha caalamiga. waa ku dhawahay ciyaar Bilay Media anigoo ah maamulaha guud ee Nagaad Cafe and Restaurants Ikram Ali Maxamed. waxaan aad ugu faraxsanahay booqashada nagu soo booqateen xarunteena Nagaad oo noqotay barta dhalinta Soomaaliyeed ee ku kulmaan. sidaan oo kaleeto hadda sida aragtaan oo kaleeto sida wacan ee ciyaarta u dhaxaysa Manchester City iyo Manchester United ee halkan ugu socota dhalintana ee waqtiga ku bixinayaan oo yani u heelan yihiin. Nagaad waxay noqotay barta loogu soo hagaagi karo maxaa la sheegeen jawi nabdoon oo degan alxamdulillah. tartanada caalamiga sida Champions League iyo koob kubadda cagta adduunku waa munaasabado mideeya malaayiin qof oo Soomaaliya gudaheeda. dhalinyaro badan ayaana rajo ka qaba in maalin maalmaha ka mid ah ay noqdaan xidiga caalamka laga daawado. dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwa leh hibo kubadda cagta balse waxay taageeraan inay daawadaan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. mid walba ay ku mid hamigiisa waxa waaye inuu ka dheelo horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. kubadda cagta caalamiga waa ciyaar ka badan madadaalo. waa madal isku xirta bulshada, dhiirigelinaysa dhalinyarada, kana dhigta kuwa riyadooda mustaqbalka ay tahay mid aad u wanaagsan. Soomaaliya gudaheed ciyaarahani waa hibo, rajo iyo midnimo.